Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan asxaabta qiimaha badan ee ku xiran channelkeena YouTube ee Garatso isku soo noqod wanaagsan weli waxaynu ku guda jirnaa barashada video editorka softwareka lagu magacaabo After Effects maanta waxaan maraynaa casharkeenii 13aad waxaynu ku baran doonaa qaabka loo sameeyo haddii aad aragtay wareysiga TV-yada ay qaadaan ee qadka taleefanka hirarka dhaqdhaqaaqa ee la socda codka qaabka loo sameeyo ku soo dhawow casharka aynu ku bilownaa si aad hordhac barnaamijka arkaysa maanta waxaan samayn doonaa hirarka la dhaqaaqa codka waxaan isticmaalaa TV-yada way isticmaalaan iyo dadka channelada YouTube leh si loo ogaado meeshan inuu cod ka soo baxayo uusan noqon wax sawir taagan oo kale tusaale haddii qadka taleefanka qof ka soo hadlayo kale waxa la raacsiiyaa hirarkan markii After Effects lagu sameynayana waxa weeyaan effects kala isticmaala waa audio spectrum marka aynu ku bilownaa composition koowaad ayaan samaysan doonaa halkan waxaan ka dhigaynaa 19 iyo 20 oo waa sida caadiga ahayd marka 19 iyo 20 ayaan ka dhiganaynaa meeshan hoosena waxay noo ahaanaysaa 10 iyo 80 sida caadiga frame rate waxa ka dhigtay 30 sikimada ay isticmaalna waa 15 compositionka magaca u bixinayo waxa weeyaan cod ayaan u bixsan doonaa colorka isticmaalayo waa madowgaas marka inta markii aan sameeyo waxaan sameyn doonaa kale waxaan soo gashan doonaa sawir iyo waxaan soo gelinayaa iyo codkii oo aan ku tijaabin lahaa sawirkii codkii labada waa inaad meel ku soo diyaarsataa haddii jiraan waxyaabo kalena sida weeyaan laakiin muhiimaddu waxa weeyaan maantay inaan barano si codkii hirarka loo saaro maane sawir Photoshop in si loo soo geliyo After Effects ma baran doono marka sawirkan ayaan soo geliyay geesaha ayaan kala ekaysiin doonaa halka markii la ekaado kala dan dhinacyada waa di sawirka uu gaaban yahay marka intaan kala marka ku sameeyo halkan waxa ku qoran hirarka codka After Effects xariiqintan waxa uu sameeyay waxa weeyaan inaan codkii ku tijaabiyo oo kale sawirkan waa sawir caadi ah oo internet soo dejiyay marka waxaan samaysan doonaa mar labaad meesha u socono muhiimadda ah inaan samaysano composition cusub compositionkan waxa u bixin doonaa dabcan hirarka ayaan leenahay hirarka codka marka codka aan dhahno waxaan samayn doonaa oo kale codka marka waxaan kala samayn doonaa meeshan waan ka bedelaynaa awal shashada sida u jeedo way la eg tahay oo tusaale sawirkan oo kale halkan aan geeyo hirarka codka shashada si u leegiyo u jeedaa oo awal aan soo samaystay sawirkan hirarka codka qoran tahay waana meeshan ugu fiican oo size-ka ama shashada la eego kala weeyaan laakiin hadda intii waa ka yareena maadaama isticmaalayna wax yar oo halkan oo kale aan uga baahanahay in intaan oo kale keeno ilaa intaas kale inta isku jiraan ayaan u baahanahay inaan keeno marka cabirka waa inaan ka yareeno cabirka isticmaalayna meesha waa inaan ka dhignahay 750 meeshan hoosena waxa ka dhiganaynaa 200 waa size yar oo nagu filan weeyaan intaas markii aan ka dhigo sikimada waa 15 kc hadda sidaad u jeed waxa ii soo baxay control plus diyan iraado compositionkan yar waxaan ku sameyn doonaa marka compositionkan inaan hadda ku soo darsado waxa lagu magacaabo solid waxaan dooran doonaa new kadib waxaan ka dooranayaa solid waxaan sidoo kale asagana midabkiisa ahaado madowgiisa kala iska ahaado marka okay aan iraado hadda waxa soo gelin doona waxa weeyaan inaan doorto waxa lagu magacaabo codkii duubnaayo kale codkii duubnaa marka asagana aan soo geliyo halkan waxaan ku qori doonaa waxa lagu magacaabo effects waxaan ka dhexreeyin doonaa waxa weeyaan audio spectrum haddii aan ku qoro waa midkan ii soo baxay audio spectrum asaga ayaa soo jiidi doona halkan haddii aan keeno sidaad u jeedi halkan waxaa ka soo baxay waxyaabo yar yar oo barabara ah kadib waxaan samayn doonaa bontigan inaan halkan geeyo kadibna inaan halkaas geeyo waana cabirka ugu wanaagsan weeyaan kan waxaan u jiidayaa dhanka midig bidix aan iraado kana waxaan u jiidayaa right click iyo left click meesha ka kala xigan ayaad labada dhinac u jiidaysaa mashrib iyo maghrib oo kale weeyaan marka hadda waxaan samayn doonaa meeshan ay ku qoran tahay 2000 waxaan ka dhigayaa 600 waana cabirka ugu wanaagsan meeshan waan fahmi doonaa iyadana u soo laabtay colorka aan ka dhigan doono waxa weeyaan midkan tusaale colorkan guduudka oo kale haddii aan ka dhigo waa okay kana sidoo kale aan waxaan ka dhiganayaa asagana mid gaduudan marka halkan waxaan ka dhigayaa waxaan dooranayaa meeshaas waxa ii soo galaysa u jeedid cod duuban waa midkan ayaa soo galaya marka meeshaas falaarta yarta ayaad furaysaa kadibna cod duuban ayaad qaadanaysaa marka halkan u soo laabtay haddii aan halkan u jiido ama wax yar tusaale si u jeedid falaarahaas oo kale ayaa waxaan ku sameyn doonaa kuwa cayilan kadib hadda halkan oo kale u jiido okay falaarihi halkaas ayay ka soo baxeen
meeshaan sidaad u jeedid wax kale oo aan ka bedelaya ma jiraan waana meesha ugu wanaagsan halkan haddii aan hal mar wada fiirino sitekan ay ku qoran tahay site options waxaa ku jira 3 doorasho haddii aan doorto wuxuu noqon doonaa mid kor kaliya ka nuuxnuuxsada oo aan hoostan waxba shaqo ku lahayn haddii aan b doortana wuxuu noqon doonaa mid fallaaro hees u dhaqaaqaan korna aysan wax shaqaa ku lahayn marka waxaan samayn doonaa waxaan dooranayaa site a iyo b intaas markii aan doorto waa okay waxaan samayn doonaa waxaan tegayaa ku dhufanayaa project waxaan sii tegayaa kadib halka ay ku qoran tahay ama cod oo kale kadib markaan intaas iraado meeshan waxaa ii soo galay sidaad u jeedid waxay ku qornaayeen oo kale hirarka codka ayaga ayaan soo jiidi doonaa halkan ayaana keeni doonaa aan kor mariyo oo waa laga kor marinayaa kadib sidaad u jeedid meeshan waxaa ka soo baxay codad ama fallaaro yaryar oo codka la shaqeeya marka halkan kale ayaan u jiidayaa si ay meesha cabir fiican igu noqdaan hadhowna aan u arko waxa aan samaynayo waxa ay yihiin marka halkaas oo kale aan yara dhigo qayb sidan ayay igu soo baxeen hadda waxaan daari doonaa isku dayayaa codka ay sheegayaan fallaarahan ayaan weli bilaaban sida ay ula bilowdaan marka hadda ayaan bilaabay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan asxaabta qiimaha badan ee ku xiran channelkina YouTube ee Garatso isku soo noqod wanaagsan weli waxaan ku jirnaa barashada video editing software-ka lagu magacaabo After Effects waa intaas weeyaan wax ay la dhaqaaqayaan hadda waxaan ku celin doonaa marka wax yar sidaad u jeedid background-ka hoose waa guduud codadkayguna ama fallaaro guduud weeyaan waxaan ka dhigayaa marka mid madow background-kan waa madow ayagana madow ayay noqon doonaan marka waxaan sameynayaa waxaan tegayaa halkaa ku qorta effect waa ku laabanayaa kadib waxaan ka dhigayaa madow anoo waxba u jeedin ayaan ku samayn doonaa halkan oo kale madow ayaan asna ka dhigayaa midabkan dooranayo sidaad u jeedid background-ka ayay dhex galeen waxba loogama jeedo marka hadda waxaan sameynayaa projectkiisa aan ku laabto kadibna aad doorto cod ayaga madow ay ii soo baxeen oo halkan ayay madow assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan asxaabta qiimaha badan ee ku xiran channelkina YouTube ee Garatso isku soo noqod wanaagsan weli waxaan ku jirnaa barashada video editing software haddii aad maqashay hirarka codka la dhaqaaqa telefoonada kuwa la socda oo kale oo markii qof la wareysanayo tusaale halkan oo kale telefoonka la keenayo qofkii hadlaya waa kan haddii aad aragtay heesaha lyricska lagu magacaabo si hore ee la qaado oo kale meelahan oo kale ayaa waxa la soo dhigaa audio spectrum oo kale meelahaas oo kale kadib halkan heestii oo lyrics ayaa waxa soo horumaraya marka qoraalkeedii heestii iyo muusigii iyo codkiina waxaa la dhaqaaqaya waxa weeyaan audio spectrumkan hadda aan soo sameynay oo codadka ah marka qaabkaas ayaa loo sameeyaa After Effects haddii aad fahanteen waa kaas welina waxaan maraynaa qaybihii ugu dambeeyay After Effects cashar la midana ma jiro cashar walba hortiisa ayuu socdaa markaan casharkeena halkaas ku egyahay iskuna day insha Allah tijaabi casharo yaryar oo gaagaaban oo sidan oo kale oo After Effects waa noo socdaan sidaas iyo nabaadiino qaabka loo save gareysana dhowr jeer ayaan ka hadalnay oo control s haddii aad tiraahdo wuxuu kuu save gareysmayaa qaab After Effects ahna Premiere Pro ayaa soo kicinaysaa kadibna waxaad leedahay file waxaad tegaysaa kadib open After Effects ahna ayaa soo kicinaysaa ama u soo gashanaysaa marka qaabkaas iyo muuqaalka u dhex gelin kartaa haddii aad doonaysid caadi ahaan inaad u save gareystana casharada ugu dambeeyay oo aan ka soo hadalnay qaybaha ugu dambeeya fiirso insha Allah